بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. أنا waxaan ahay magaalkan ka qaaday Cabdullaahi Ibrahim Xirsin ninka la yiraahdo. Naanasteedina dhugud baa la yiraahdaa waxaan ahay golaha guurtida ee rasmiga ah ee ugu magac weyn ugu daaweyn baan ugu daaweyn. Haddii saaka iyo ilaa shalay qaaqul yar socday oo markii hore madaxweynaha iyo gudoomiyaha wakiiladu arrin dhex maray oo ay ka heshiiyeen arrinkoodii oo ay labada taliyay wanaajisteen aad iyo laxaad baanu ugu faraxnay haddii aanu nahay dalka waxaanaanu waafaqsannahay sidii ay u soo nabadgeliyeen ay dalka u dejiyeen ay labadii mas-uul isku aqbaleen ayaanu aqbalsannay taasaanu raacsannay waxa kale oo jiroonu saa ka arkaynaa golaha wakiilada rag ka mid ah oo ku kacsan saaka gudoomiyihii golaha wakiilada lama ogeyn shalay markii ay madaxweynaha iyo odaygan wada hadlayeen wakiiladu kuwaasu dee meeshaba uma joogin waanay wax rabasho ay la maqnaayeenna ma jiro nimankaasu saaka magaalada rabash weyn bay geliyeen iyo dalka haddii aanu nahay golaha guurtida ama Soomaaliland weynta ma ogolin dalka wax rabasha dalkanu dhibaato nagu soo maray wuu noo xasilayay nabadgelyo iyo deganaan buu ku fadhiyaa cadaw badan baanu leenahay cadawga iyagiyo dacal walba nagaga jira rag naga mida waxaanu filaynaa inay naloo soo dirayba ma aqbalayno mana yeelayno wixii rabisha iyo golaha iyo golayaasha midna waxaanu raacsannahay ciddii nabadgelyo kaga shaqaynaysa iyo deganaan waxaanu diidanahay Soomaaliland ninka rabish dhammaan u soo qaadayaa yidhaa isaga qudhiisu maanu ka qabanaynaa annaga rabishku nuguma badnaa cadowna maanta ma qabno laakiin cadaawo badan baan leenoo dhan walba naga soo galay inay noo soo galaan hay'adahanu cadaawgeedada wada golayaashana waa laga filayaa waxaanaan raalli ka ahayn rabish dalka ka dhaca nabadgelyaanu doonaynaa ninkay nabadgelyada ku qanci waayana sidiisaanu u qabanaynaa